السلام عليكم. halkan waa taqaanaa طبعا hada soo bixiyo waa suufkii loogu talagalay in loo isticmaalo dhagaha in wasaqda looga soo saaro. maanta kadib hubi inaad iska joojiso saddex sabab oo soo socota darteed. sababta koowaad waxay tahay wasaqdii aad soo saari lahayd gudaha dhagaha ku jiray ay gudaha u sii riixaan. mar walba aad isku daydid maadaama aadan u jeedin dhagtaada gudaheeda oo aad u isticmaalaysid kaliya inaad ku soo saartid wasaqda gudaha ku jirtay, mar walba waxay u riixaan gudaha qashinka ku jiray. sababta labaad waxay tahay waxay ku keeni karaan in bacteria ama virus jirka banaankiisa yaalo ayay gudaha u gelin karaan. sababtoo ah waxa isticmaali kartaa asagoo meelaha yaalo ama aanan si fiican u xirnayn afkiisa, bacteria afkiisa fooli karto. sababta saddexaad waxay tahay mar walba aad isticmaashid gudaha suufkan afka hore ku xiran, halkan waa caag, halkan waa suuf, mar walba aad gudaha gelisid waxaad ku soo dhaafi kartaa gudaha suufka dhagtaada gudaheeda. marka sidaa daraadeed haddii aad u isticmaali jirtay in aad wasaqda uga soo saarto dhagahaaga, fadlan jooji maanta kadib. sababtoo ah jirkaaga asaga ayaa iska soo saarayo wasaqdii ku jirtay gudaha dhagta. fadlan iska jooji.